xubno ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo madooyinkii la soo dhaafay ku sugnaa Beledweyne mas'uuliyiinta maamulka gobolka guddiga fatahaadaha degmada Beledweyne ayaa ku guuleystay inay furaan qaybaha dambe ee kanaalka Waraaboole iyadoo la dhisay kanaal dheer oo 5 kiiloomitir gaaraya kaasi oo lagu furay biyaha kanaalka Waraaboole si Beledweyne laga badbaadiyo biyaha ku soo laabanaya injineer Axmed Cabdikariin wuxuu ka mid yahay injineerada ka socda dawladda Soomaaliya shaqadan madooyinka la soo dhaafay ka wada Beledweyne waxaana ka warbixiyay halkay wax marayaan halkan aan taaganahay ujeedid waa qayb kamid ah ama mid kamid ah xalalkii loogu talagalay in fatahaada lagu xaliyo ama looga hortago waa kanaal aan ka bilownay degmada ama tuulada Gambarlaawe aan geynayno hadduu Ilaahay yiraahdo Burdeenle tuulada Birdheele aan geynayno dhirkiisuna uu yahay kanaal dhirkiisu uu yahay ilaa 5 kiiloomitir oo aan rabno biyahaas culayska badan leh magaalada Beledweyne ku cabursan inaan ku neefino Nafisa Geedi oo kamid ah la taliyaasha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegtay in shaqadan ay iska kaashadeen guddiga fatahaadaha Beledweyne maamulka gobolka isla markaana ay ku rajawan yihiin inay ku guuleystaan in ay biyahan ka xakameeyaan bulshada maamulka gobolka ganacsatada gaar ahaan guddiga fatahaadaha ee Beledweynaha oo hormuud ka yahay maxaa la yiraahdaa Xaaji Cismaan Sabriye iyo dadka kale oo maqan maamulka waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa ma aragtay xukuumadda oo markaan juhdi badan gelisay inay ka hortagto fatahaad inay Beledweyne ka dhacdo isla markaasna qayb waxaan ka nahay aniga Cabdi Fataax in aan on the ground ahaana ama aan Beledweyne ku sugnaano haddii lacala ay dhacdo fatahaad si gurmad degdeg ah loogu helo shacabka reer Beledweyne maayarka magaalada Beledweyne Safiye Sheekh Xasan Cali Jamcaale iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Ismaan Cali ayaa dhamaantood ka mahadceliyay dadaaladii la sameeyay marka labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xafiiska Prime Ministerka dhamaan xukuumadda gaar ahaan xafiiska Prime Ministerka oo shaqadan ka soo bilaabeen Maarso ilaa iyo hadda soo noqnoqonayeen waxa si kale ugu rabaa inaan ugu mahadceliyo guddiga ganacsiga laakiin haday xafiiska Prime Ministerka imaan lahayn maanta hawshan ma hagaagi lahayn aqligii ay noo keeneen dhaqaalihii iyo magaaladii dadka joogayna oo yaqaanaan biyihii meelihii laga kala xiri lahayn guddiga ganacsiga noo keeneen maanta waxaan taaganahay biyo furitaan aan taaganahay hawsha laba qayb ay ahayd biyo la xiro iyo biyo la furo soo weygu u nafsado waxaan u mahadcelinaynaa runtii fikirkan hadda iyo meesha aan joogno iyo shaqadan ka socoto waxaa la yimid xubnihii dawladda federaalka ka socday ayaga keeneen gaar ahaan injineer Axmed ayaa fikirkan keenay injineer Axmed waa nin hadee dalka yaqaan oo Hiiraan ka soo jeedo asaga fikirkan keenay runtii waana fikir hadda lagu mahadiyay waayo waxaan aaminsanahay hadii kanaalkan hadda aan furno biyihii way neefsanayaan marka waxayna sabab u noqonaysaa in magaalada Beledweyne ay biyihii marka ay ka yaraadaan ama biyihii laga hortago Cabdishakuur Ismaan Cali SN TV Beledweyne